aroortii waxaan ka baxnay halkan 8 iyo barkii subaxnimo khamiistii 27 August bay ahayd waxaan tagnay Qoraya Cawl 12 subaxnimo markaan tagnay Qoraya Cawl ciidan diyaarsan oo RRU iyo hub badan wata ayaa halkaa ku tagnay isbaaro iyo jidgooyo ayay nagu sameeyeen halkaa ma dhaafi kartaan bay nagu yiraahdeen dhibaatada ma nufilayna anagu khabar muddo baan iskaga soconay ugaas adigu xageed ku socotay oo safarkaaga uu ku sii jeeday walaal safarkay wuxuu ku sii jeeday Boorama dadkaygii oo hore aan odayaal ugu diray oo ii soo noqday oo yiraahdeen dhulkii waa diyaar waa lagu soo dhaweynayaa ugaas diyaar baan nahay waxay la kulmeen badha saabkii waxay la kulmeen dadkii maaragtay mas'uulkii dhulka joogay ayay la kulmeen kuwii nabadgelyada u qaabilsanaa kulli waan 3 oday baan halkan ka diroonay oo soo eega sidaasay marka igu soo xaqiijiyeen oo ii soo noqdeen kolkaasaan socdaalkan bilaabay oo socday anoo warba aanan dhibaatadan ba filayn un baa halka Qoraya Cawl nagu heshay ugaas dawladda ma ogeysiisay safarkaaga maadaama aad Ethiopia ka gudbaysay had kalena aad u gudbaysay meeshana nidaam dawli baa ka jira nidaam ku gasho ma lagu ogaayo dawladda ma ka warqabtay walaal dawladdeena waan la socodsiiyay waxa weeye waa loo sheegay hoggaanka nabadgelyada ee xagga Ethiopia waa loo sii sheegay waaniga ku sheegay xagga kalena odayaal baan diray oo iyaguna nabadgelyadii way soo celiyo waa lagu diyaarsan yahay shacabkii waa taagan yahay baa laygu yiri sidaasaan markaa anigoo nabadgelyada og baan ku tegey ugaas odayaasha dhaqanka ee beeshaada ee dhinaca Somaliland ka sokow Somaliland maamul iyo nidaam iyo haykal dawladnimo ka jiraaye ma u sheegtay inaad xadka gudbayso Boorama ku socoto walaal odayadan aan diray ma arkaysaa xagga nabadgelyada ka soo xaqiijiyay walaal way ogaayeen anuguna ugaastii reerkaan ahay way ogaayeen taasi waxaan kaaga jawaabayaa oday xagga Somaliland uu ogeysiiyay maamulkii marka Boorama ugaas waxa la isweydiinayaa maxaa safarkaaga xilligan ku soo beegay Somaliland doorasho isu diyaarinaysa awdal dadka degan qaar ka mid ah waxay leeyihiin saami qaybsiga su'aal baan ka qabnaa soo lama oran karo ugaaska xilliga uu ku soo beegay safarkiisa waa xilli ay jiraan dad wax tabanaya gaar ahaan reerkan aad saldanada u hayso anigu ugaas dhaqameed baan ahay ugaas siyaasadeed ma yihi dhaqankaan horeba ku tagi jiray un baan u socday bay ahayd wax ma garanaysaa khilaaf keenaya iyo hadday khilaaf jirana kii xalin lahaa inaan marjici loo soo noqonaya aan ahay ayaan walaal ku sheegaya ugaas adigu saldanadaada ugaasnimada ma samaroonka degan Ethiopia kaliyaad ugaas u tahay mise kuwa Somaliland iyo kuwa Djibouti iyo samaroon meeshuu joogaba adaa ugaas u hoo saldanadii dhaqanka iyo usha u haya walaal aniga dhaqankii ugaaska beeshaas Djibouti meel alla meeshay joogaanba anuunba saldanadii 19 baan ahay aabahay anaa ka dhaxlay curadkii baan ahay saldanada inta saddexda ay wadan ay dadkaygu kala duwan ay kala degan yihiinba anuunba ugaaska u ah cid kale oo ugaasi ma jirto laakiin waa kala masaalix soo ma ahan qabiilkan aad u tahay suldaanka u tahay ama ugaaska isku maslaxad ma ahan adigu fadhigaagu waa Ethiopia reerka Ethiopia deganeed ugaaska u tahay maslaxadooda hadba Ethiopia waafaqsan tahay inta Somaliland degan Somaliland iyo dawladnimadaas ay hoos tagaan kuwa Djibouti iyo haykalka dawladnimo ee halka ka jira marka dhaqankii iyo masaalixdii dawladnimo ee ay dadkan ku kala noolaayeen ugaas Cabdirashiid sidee la soo waafajinaya walaal anigu ugaaska kaliya saddexda wadan sheegaysidba oo ah ugaaska kaliya uu ah baan ahay kolba wixii dhibaato xaggan ka jira Ethiopia waan imaada waan xaliyaa kolba wixii xagga maaragtay Somaliland ka jira kolba wixii ka jira kolba wixii Djibouti ka jira waan tagaa waanan soo xaliyaa waxayna ku xidhan tahay kolba salaadiinta halka joogta inay la soo socodsiiyaan hadday dhibi jirto sidaasaan walaal ku tagaa dadkayguna sidaasay ugu ogyiin igu taageersan yihiin